Muuqaalkan waxaynu kaga hadli doonaa jibbaarada iyo qaabka loo xalliyo. Waayo tusaalaha u horeeya waxa weeyaan square root of x ayaa waxay noola mid tahay 3. Qaabkee baan u xallinaa marka square root of x waxay noola mid tahay 3. Labada dhinacba waxa weeyaan dhinaca midigta iyo bidixda. Waa dhinacan iyo dhinacan. Labada dhinacba waxaynu ku sameynaynaa jibbaar. Waynu laba jibbaaraynaa si aynu meesha uga saarno xididka. Si aynu kan meesha uga saarno ayaa labada dhinacba waxaynu ku sameynaynaa jibbaar. Waayo haddaba dhinaca waynu laba jibbaaraynaa waxaynu odhanaynaa intani waxay noola mid tahay square root of x oo lagu jibbaaray 2. Taas way noola mid ah 3 lagu jibbaaray 2. Okay, halkan waynu sii fudaydinaynaa sida caadiga ah square root keliya. Square root-kaasoo keliya waxay noola mid yahay jibbaarka. Tusaale kaba soo qaadanaynaa square root of x waxay noola mid tahay x to the power of 1/2. Intaasay noola mid tahay. Maadaama inta ay noola mid tahay inta gudaha inoogu jirta oo ah square root of x intanaynu ka hadlaynaa inta gudaha inoogu jirta waxaynu ku bedelaynaa intanaynu ku bedelaynaa. Waayo waxaynu odhanaynaa haddaba x to the power of 1/2 oo lagu sii jibbaaray 2 ayaa waxay noola mid tahay 3 lagu jibbaaray 2. Halkan waxaynu isku dhufanaynaa haddaba labaduba waa jibbaar. Waxaad ogaataa tanna waa jibbaar intanina waa jibbaar. Labadaa jibbaar waynu isku dhufanaynaa. Dabeedna haddaa 1 loo qaybiyey 2 aynu ku dhufanno 2 keliya waxay noola mid noqonaysaa 2 loo qaybiyey 2. Sababtoo ah halkan waxa u qaybsan 1 dabeedna labadana waa isku dhufan oo 2 markaynu ku dhufanno 1 waa 2. Markaynu 1 ku dhufanno 1 waa 2. Dabeedna haddii aynu 2 u qaybinno 2 waxay noola mid noqonaysaa 1. Okay, intani markaa waxay noqonaysaa x to the power of 2 loo qaybiyey 2 ayaa waxay noola mid tahay 3 lagu jibbaaray 2. Dabeedna labada markaynu isku qaybinay 1 ayay soo baxday. 1 x lagu jibbaaray waxay noola mid tahay labadana waynu isku dhufanaynaa. Micnihii 2 markaan leeyahay labadan ayaa lagu jibbaaraya. Taa micnihiidu waxa weeyaan 3 lagu dhuftay 3 ayaa waxay noola mid tahay 9. Halkan waxay noola mid noqonaysaa markaa 9. x haddii aad hal ku jibbaartana waa x un. Qiimahaasi waxa uu soo baxayaa un x keliya. Dabeedna intan waxay noola mid noqonaysaa 9. x marka qiimaha x waa 3. Laakiin inuu qiimahani sax yahay iyo inuu khalad yahay saan ku ogaanaa. Qiimahan inuu yahay mid sax ah oo qiimahaynu soo saarnay uu sax yahay iyo inuu khalad yahay waa inaynu ku bedelaa halka x taalo. Barta x taalo oo xisaabteennii hore ah waa inaynu ku bedelaa qiimahan aynu la soo baxnay 9. Waayo marka waxay noola mid noqonaysaa square root of 9 ayaa waxay noola mid tahay 3. Dabeedna qiimaha saxda ee micnihii tiri intaad 2 jeer isku dhufato ku siiso 9 waa 3. Ama haddaynu nidhaahno square root of 9 qiimihiisu waa 3. Jawaabta square root of 9 waxay noola mid tahay 3. Markaa 3 waxay noola mid tahay 3 sax weeyaan marka qiimahani wax ka khaldani ma jiro. Waayo balse hadday sida noqoto ka waran hadday qaabkan tahay x to the power of 3 waxay kula mid tahay 8. Masaladan iyo tii hore way kala duwan yihiin. Markay qaabka u taalo waxaa qasaba inaad labada dhinacba isku mid ka dhigto siiba jibbaarada. Haddayna jibbaarada isku mid ka dhigin waa dhinacani jibbaar buu leeyahay laakiin dhinaca jibbaarkiisu waa 1. Halkan 1 baa jibbaar ah balse halkan 3 baa jibbaar ah. Marka sidee baan halkan 3 uga dhigi karnaa? Su-aashaas ayaa loo baahan yahay in laga jawaabo intaanaan ka shaqayn. Waayahay haddaba suurtagal ma tahay horta inaynu ka dhigno inaynu jibbaarka 3 ka dhigno labada dhinacba.
okay waan eegaynaa 8 haddaad 3 jeer haddii laba 3 jeer isku dhufato 2 lagu dhuftay 2 lagu dhuftay 2 waxay noola mid tahay 8 haddaynu 2 ku dhufano waa 4 4na haddaad labadii nooc ku dhufato waa 8 marka x to the power of 3 waxay noola mid tahay 2 lagu jibaaray 3 okay labada jibaar waan iskaga tegaynaa haddaba maadaama labada jibaar isku mid yihiin qasab waxaa labada hooseeya inay isku mid noqdaan waxaa x marka waxay noola mid tahay 2 haddaba qiimaha x aynu soo saarnay 2 ah inuu sax yahay iyo inuu khalad yahay si aynu u ogaano waxaynu ku bedelaynaa halkii hore inoo taalay x qiimahan waxaa leeyahay x baa inoola mida marka waa inay halka x taala aynu ku bedelaa waayahay aynu ku bedelaa haddaba waxaynu odhanaynaa 2 waa halkii x taalay baynu ku bedelay oo bartaas to the power of 3 waxay noola mid tahay 8 dabeedna haddii aynu 3 jeer isku dhufano 3 haddaynu 3 jeer isku dhufano 2 wax iska cadin 8 noqonayso waayo horeynu iskugu dhufanay oo waa tan markaa 8 waxay noola mid tahay 8 jawaabtaas waa sax qiimahana waa sax marka bal xabaddan aduu isku day marka intaad muuqaalka joojiso waxay isku daydaa inaad aduu ka shaqeyso waxa weeyaan 2 to the power of x ayaa waxay noola mid tahay 16 okay haddii aad ka shaqeysay oo aad soo saartay qiimo saxa isla markaana aad hubisay waxay ka dhigan tahay dhowrkii tusaale aynu kasoo shaqeynay waad fahantay haddii kalena waan ka shaqeynana 2 to the power of x ayaa waxay noola mid tahay halkan waxaynu ka dhigaynaa micnihii sareeyayaasha ama hooseeyayaasha labadaa waa inaan mid ahaan isku mid ka dhignaa haddaynu nidhaahno 2 lagu jibaaray 4 waa sax sababto waxay tahay 2 lagu dhuftay 2 lagu dhuftay 2 kale lagu dhuftay 2 kale waxay noola mid tahay 16 oo labadan haddaad isku dhufato waa 4 labadan haddaad isku dhufato waa 4 kale 4 iyo 4 haddaad isku dhufatana waa 16 dabeedna waxaynu odhanaynaa 2 lagu jibaaray 4 iminka maadaama hooseeyayaashu isku mid yihiin qasab waxaa sareeyayaashuna waa isku mid marka hooseeyayaasha waa iskaga tegi karnaa waxaynu odhanaynaa marka x waxay noola mid tahay 4 bal haddaba aynu ku bedelaa halkay xtu inoo taalo qiimaha 4 waxay noqonaysaa markaa qiimaha 4 ayaynu halkaa ku bedelaynaa 2 to the power of 4 ayaa waxay noola mid tahay 16 waa sax waayo horeynu usoo tijaabinay oo 2 to the power of 4 waa 16 16 markaa wuxuu noola mid yahay 16 qiimahana waa sax jawaabtana waa sax